agaasimihii xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo shaqada looga ceeriyay kadib markii uu taageeray xiriir la yeesho Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa la sheegay inuu shaqada ka ceeriyay Cabdullaahi Axmed Dool oo agaasimihii xafiiskiisa kadib markii uu sarkaalkaasi bartiisa Twitterka ku soo qoray qoraal uu ku taageerayo inay Soomaaliya xiriir la yeelato Israa'iil. Cabdullaahi Dool waxa uu Twitterkiisa u qoray inay diblomaasiyad ahaan wax dhibaato ah lahayn inay Soomaaliya xiriir diblomaasiyad la yeelato Israa'iil, wuxuuna sheegay in danteenu tahay inaan soo dhaweyno Israa'iil. waxa uu kaloo qoraalkiisa uu ku xusay inay shacabka reer Falastiin yihiin khasaarayaal, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa Islaamiga Xamaas oo ku tilmaamay inay afduubteen dadkooda ku nool Gaza. ceerinta ay ceerisay dowladda Soomaaliya agaasimihii xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ayaa imaanaysa xilli oo wafdi sare oo ka tirsan maamulka Somaliland ay ku sugan yihiin magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalka Israa'iil.